بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كدب عن مدحت قرنكو ورق عن صوّد الشقيني هل قرديرنا صوّد قالني قواننا مسيري احنا صوّد قارني حدبا محاد ليي خلافك وحيابه دليي خلافك السياسي اها بريها انتاقنا وحاسبابي لبضن الريموت سو سعوته كو حسيلونيدا iyo nabadgelyada gobolka Banaadir waa mid si guud iyo si gaar ahba ugu baahan nabadoonnimo iyada oo la ilaalinayo sareynta sharciga. labo shirkii wada tashiga nabadeynta iyo horumarinta gobolka Banaadir oo ahaa shir looga tashanayay laguna soo bandhigayay aragtida muqdishaawiga ee ku aadan adeega asaasiga horumarinta dhaqaalaha amniga iyo arrimaha siyaasadda oo ay ugu horeyso matalaada dastuuriga ah ee 3 milyan ka maqan shacabka ka badan 3 milyan ee gobolka Banaadir degan waxa naga wada saaran waajib damiiri ah oo Soomaalinimo sida daraadeed waxaan shacabka gobolka Banaadir ugu baaqayaa nabadgelyo iyo in la dhowro xasiloonida lagana fogaado wax kasta oo keeni kara in amniga Muqdisho khalkhal gala xasiloonida iyo nabad ku wada noolaashaha ayaa wax kasta nooga muhiimsan magaaladan waxay soo martay marxalado kala duwan oo adag si tan maanta taagan looga gudbana waxaa nala gudboon dulqaad iyo dhabar adeeg in gobolka Banaadir galo jahwareer iyo nabadgelyo xumo waxaan ka doortay in aan xilka wareejiyo isla markaana u hambaliyeeyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee magacaaban si taasi u dhacdo dhibaato kalena aanay u iman waa in si degdeg ah aqalka dawladda hoose ee xamar xayiraada looga qaado haddaba waxaan magacaabi doonaa guddi xil wareejin oo ka shaqayn doona arrinkaas mahad badan assalaamu calaykum warahmatullahi